xalqadeena maanta waxa ay ku saabsan tahay saaxiib. Kan yar waxaa la yiraahdaa Axmed hooyadii waxay lahayd xanuun u diiday in ay sariirta ka kacdo oo habeen iyo aroorba way jiifi jirtay. Aabihiina habeenkii xilli dambe ayuu iman jiray oo seexan jiray. Aroortiina isagoo hurda ayuu Axmed iskuulka tegi jiray. Taasina waxay keentay inuu Axmed xilli hore habeenkii sii baxo oo uu kubad soo ciyaaro. Waxaanuu soo noqon jiray habeenku markuu sii dhammaanayo. Habeenada ka mid ah isagoo kubad ciyaaraya Axmed ayaa ay isjiideen inan kale. kumaan arkayna iskaraaleehow iminkani dhib gacanta aan ku caawiye. Intay garoonka agtiisa fadhiisteen ayay isla sheekaysteen oy saaxiibeen. Labadii sidii bay ku saaxiibeen oo ay markasta isku iman jireen oy wada sheekaysan jireen. Maalin ayaa uu yidhi Axmed saaxiibkii ma ku soo bara asxaabtayda kale. Axmedna uu aqbal. soo dhawaada saaxiibayaal, iska warama. saaxiibkeena sumigii waxaa la yidhaahdaa Axmed. su'aal ma weydiin karaa? waa maxay waxaan aad gacanta ku haysa? waa shay marka murugaysannahayn cabno oo caalamkan waan ka baxno. maad tijaabinaysaa? haye islaanta halkaa fadhiida ma arkaysa? dad qaaliya fidatay nooga soo qaad. haye waryaahe war hooyey Saacid wax muhiima igu jiray. Axmed halkaas ayaa uu ku bilaabay tuugada iyo xumaan nooc walba ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa uu isku dayay inuu xado bangi, laakiin saaxiibkan waa kala qabto maxaa sameeyay? waxaan imi gelin isaga waxaad naga maxkamadii kadib Axmed waxaa lagu xukumay dil. Axmed dilkiisii markay hooyadii maqashay ayay naxdintii dhimatay. Aabihiina waxaa ku dhacay xanuun aad u daran. Markaa waxaan idinka digayaa saaxiibka xun. Ilaahay markuu Qur'aanka kaga sheekaynayo wuxuu gaalku ku calaacali doono markuu naarta galo. wuxuu yidhi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا oo ay macnaheedu tahay hoogaygiyey maxaan hebel saaxiib uga dhigtay. taasina waxay muujinaysaa inuu Ilaahay inooga dhigay saaxiibka xun.